Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharkeenii maanta. Maanta waxaan qaadanaynaa cashar ku saabsan calaamadaha waddooyinka. Waxaan idin soo qabanayaa calaamadda koowaad oo loo yaqaano Slippery Road Ahead. Calaamaddan waxay ku tusinaysaa in waddada ka horreysa ay tahay mid sabiix ah oo aad ku sambariiqan karto. Calaamadda labaad oo aan maanta qaadanayno waxaa loo yaqaanaa Two-way Traffic Road Ahead. Calaamadani waxay ku tusinaysaa in ay ka horeyso waddo ay gawaaridu ku kala socdaan labada dhinac si isdhaaf ah. Calaamadda ku xigta waxaa loo yaqaanaa Danger of Falling Rocks Ahead. Calaamadani waxay ku tusinaysaa in ay jiri karto khatar ku saabsan in ay kugu soo dhacaan dhagaxyo, khaasatan marka aad marayso buuraha hoostooda. Calaamadda afraad waxaa loo yaqaanaa Traffic Lights Ahead. Calaamadani waxay ku tusinaysaa in ay ka horeeyaan nalalka lagu kala hago isku socodka gaadiidka. Calaamadda kale oo aan maanta qaadanayno waxaa loo yaqaanaa Roadworks Ahead. Waxay ku tusinaysaa in ay ka horeyso meel ay ka socoto shaqo sida dhismo laami iyo wixii la mid ah. Waxaan sidoo kale qaadanaynaa maanta calaamaddan oo loo yaqaano Narrow Road on Both Sides Ahead. Calaamadani waxay ku tusinaysaa in waddada aad ku socotid ay ka soo yaraan doonto labada dhinac. Ugu dambeyn, casharkeenii maanta waxaan ku qaadanaynaa calaamaddan oo loo yaqaano Give Way Ahead. Calaamaddan waxay kugu wargelinaysaa in aad mudnaanta siiso gaariga kaa leh waddada. Inta badan waxaa lagu arkaa isgoosyada.